بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبا جنال كين ورك ugu dambe sports ka wax walba ugu baahan tahay saxiixyada la wareey kuwa la filayo slot oo markaan afka furtay kana hadlay heshiisyadii uu sameeyay iyo kuwii naadiga ka baxay kuwa oo ka xun yahay. Maxaa ugu baahan tahay Joan Laporte oo markaan asigana afka furtay waxyaalo badan ka hadlay muuqaalka ku soo koobi doona insha Allah. Sidoo kale waxaa ka mid ah suuqa iibsiga ninkii Safinha ahaa oo markaan gadoodka ah naadi kubadda cagta Manchester City. Sidoo kale Kingsley Coman oo asigana Sacuudi loo soo waramayo Manchester United oo beenisay dalabaadka laga sheegayo xiddig ka tirsan naadi kubadda cagta Barcelona. Sesko oo markaan ku soo biiray tradingka naadi kubadda cagta Manchester United maadaama maalin shaqeed reer galbeedka maalin shaqeey u tahay maalinta Isniinta. xiddig muhiim oo Chelsea ku soo biiray seasonkan durbo 5 kulan 5 gool haysto. waa kuma xiddigaas Rodrigo oo markaan ka soo degi doono Premier League naadiga ku soo wajahan yahay. wararkaas oo dhan aan haya ku soo dhawaad janaalka saaxiibada la wadaag subscribe noo dhe like noo saar siin share gare muuqaalka meel dheer gaarsii like taada waa mashruuca kaliya sare u ku gaari karno mahadsan. soo dhawaad saaxiibayaal janaalkeena ku soo dhawaada nooca mira like noo saar muuqaalka sidoo kale daawashada muuqaalka aad iyo aad noo farxad gelinaysa inaan muuqaal kala soo dhigno inuu dhiirigelinay mar walba muuqaalka aad daawata laag aanu saartid waa mar walba muuqaal aan soo dhigno insha Allah saaxiibada kugu dhawna gaarsii oo labada ku sports ka jecel. sidoo kale insha Allah waxa bilaabi doona in taariikhaha iyo soo gudbin ciyaartooyda maadaama seasonka oo bilaaw rabo xiddig walba inaadiga soo qaadatay taariikheeda qaaska inta oo soo sameeyay naadiga kale oo ka imaaday waxyaabahaas oo dhan ayna soo gudbinaa rabnaa nuu dhiirigeliya baliis idinka wax nagu nahay. Joan Laporte oo markaan afka kala furtay yiri yes waa macsalaameynayna Inigo Martinez xiddigii mayalka adkaa daafaca super offside ahaa macalinkii daafaca Barcelona seasonkii la soo dhaaf lagu meel maray ayaa si shoga ugu taynaaday kubadda cagta Barcelona. majalada inta badan waxay qoreen in isku dhac iyo waxyaabahaas ay jireen laakiin Laporte oo maanta hadlay ayaa ka dhigay hadalka inuu yiri si xushmad leh ayuu ku baxay waxaan isku afgaranay inuu naga saacido qaybta mushaaraadka iyo waxyaabahaas iyo lacag isku haystay marka asay ayaa ku heshiiyeen in free oo ku baxo oo u baajay lacagtii uu bixi lahayd seasonka soo socda. marka Laporte wuxuu dhahay ninkaas anaga ayuu safety naga dhigo lacagtii naga bixi lahayd ayuu noo safe gareeyay. marka Laporte caadimaan sidoo kale arrimo badan oo ka hadlay in bedelkiis la keenayo ma jiraan oo wax bedel ah oo la keeni doono. sidoo kale arintii Sterling ayuu carab ku dhuftay. Sterling waa xiddig ka tirsanaaday kubadda cagta Barcelona wax walba oo yahay haddana wuu ahaa doona marka barnaamijkaas si loo looqo ugu baxay oo soo xiray. sidoo kale wararka oo Barcelona waxaa ka mid ah durba Marcus Rashford ayaa helay 2 caabin iyo gool seasonkii kadib markuu ka soo taynaaday kubadda cagta Manchester United. waxaa leeyahay bandhigiisa ma xumo mana fiicna laakiin in 2 gool oo caabiyo goolna oo helo isku diyaarinta xilli ciyaareedka soo socda ayaa ka saaciidi doonta in bandhig fiican uu ku bilaabo seasonka ayaa leeyahay. waa arki doona horyaalkan sidoo ku bilaawdo. sidoo kale Lamine Yamal ayaa lagu soo waramayaa in wax qabadkiisii seasonka inaba caadi ahayn 4 kulan 4 gool ayaa leeyahay inaba caadi maan 4 caawin waa uu sameeyay. marka ninkaas wax qabadkiisa lagama hadli karo seasonka soo socda meeqa gool ay u saadaali kartaa iyo meeqa caawin Lamine Yamal seasonkii la soo dhaafay hadda ayuu ka daran yahay leeyahay diirinta ganaha hadduu soo galo cid oo iswarsanaa ma leh shabaq loo fiirnaa ama inuu saaxiibkiis ka caabi gool. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah naadi kubadda cagta Manchester United ayaa beenisay bataatan wax wada hadal inay la furin Barcelona ku aadan xiddiga Fermin Lopez. ayaantan dhan ayuu suuq ku jira in Fermin Lopez Manchester United ay doonayso laakiin Manchester United way beenisay waxay leedahay wax dalabaad ma ka gudbinin mana ku jiro qorsheena. waa arki doona hadii oo xadgudub iyo waxa sameeyeen inay isleeyihiin laga yaaba. sidoo kale naadi kubadda cagta Manchester United ayaa lagu arkay tradingkeeda xiddigii cusba dhamaantooda qaasatan xiddiga Benjamin Sesko oo asii weli wax trading sameeyeen maanta ayuu ku soo biiray maanta maadaama ay tahay maalin shaqo reer galbeedka maalinta Isniinta ay soo xaroodaan sabti axad sida anaga khamiis iyo jimce inoo too kale ay u tahay. marka
maalinta isniinta ayaa maalin sabti u ah. marka waxaa leeyahay Sesco trainingkiisii ugu horeeyay ee naadiga kubadda cagta Manchester United ayuu bilaabay. waxaa la arkaa asoo kubada madax iyo kubadii kontaroolka lagu yaqaanay waxyaabahaas sameynaya. marka waxaan arki doonaa wixii kasoo kordho arinta Sesco iyo bandhigiisa maxaa ku qiimee leedahay ahaan saadaaliba. sidoo kale Jack Grealish oo ka tagay naadiga kubadda cagta Manchester City weliba qaab amaah wuxuuna ku biiray naadiga kubadda cagta Everton. marka Jack Grealish sidaas ayuu ku baxay mana ku jiraan qorshaha wax iibsasho ayaa leeyahay. Jack Grealish waa ku daay. sidoo kale naadiga kubadda cagta Manchester City ayaa ka bixi doono xidiga garabka bidix ee weerarka Brazilianka Safinho sida hadda majalada inta badan ay qorayaan. Tottenham Hotspur ayaa xiriir dhow la sameeyay xidiga waana ka aqbalaa leeyahay. sidoo kale Manchester City waa lagu soo dhawaanayaa kadib Tottenham doonis dhaba ay ka doonayso xidiga. sidoo kale markii Grealish oo baxo Safinho oo baxo Real Madrid xidigeeda ay dalab xoogan ka gudbi doonta ee leeyahay saacadaha soo socdo. walow la leeyahay asoo joogo Safinho xataa xidigaas bedelka Grealish waa ay doonaan. Rodrigo xidiga baxsadka ka naadiga kubadda cagta Real Madrid asiga laakiin inuu Real joogo raba laakiin Real inuu baxeerta. marka Manchester City ayaa noqon doonta xalka ugu dhow ee Real Madrid maadaama ay daneynayso xidigaas inay la soo wareegto. marka waa arki doonaa wixii ka soo kordho iyo xidigaas insha Allah muuqaaladeena xiga ayaa ku soo gudbi doonaa Safinho iyo arimahaas wax dhan insha Allah wixii soo cusboonaado. haddii wax update ay dhacaan qaybta shortiga ayaa niwul wadaagi doonaa. please muuqaalka marka daawata like saaro subscribe saaro gambaleelkan furo si aad xog walba u heshid. sidoo kale Al Nassr ayaa markaan qarka u saaran inay la wareegto xidiga garabka weerarka Bayern Munich Kingsley Coman ayaa lagu soo warmayaa in wax walba uu sameyn doono ku biirista Al Nassr. marka warkaas waa cad wixii koob oo ku guuleystay ninkan markaan Al Nassr inuu aado ayuu doonayaa. warkaas waa isku dhamaaday leeyahay. sidoo kale waxaa leeyahay warkii ugu dambeeyay soo baxay Joao Pedro oo taariikh dhigay naadiga kubadda cagta Chelsea ayuu ku soo biiray saan ogeen wuxuu kala qayb qaatay ku guuleysigii Carabao Cup-ka ee ka qayb galeen. waxaa leeyahay 5 kulan oo dheelay Carabao Cup iyo isku diyaarinta xil ciyaareed soo socda kulamadii saaxiibtinimo ahaayeen 5 kulan oo dheelay 5 gool oo dhali ajaayib. marka 5 kulan iyo 5 gool 5 kulan oo dheelay 5 gool oo dhali war ninkaas hadhoodii ayaa meel ka gali karo. isla Chelsea waxaa leeyahay waxaa dib loo arkay xidigoodii hore naadiga kubadda cagta Chelsea Fikayo Tomori oo markale ku soo laabtay ilaa shalay ay saayeen markii AC Milan iyo isku baxayeen Chelsea inaba caayma waqti fiican oo meesha ku qaatay. haddana Reece James iyo sheekaysanaa fanaanada kala bedelna la arkay. marka Tomori xidig laacib wuxuu ahaa ma yal cid ka hadli karta malaanikaas waa tagay. sidoo kale naadiga kubadda cagta Liverpool ogeen in Community laga dafay 2 gool ka hormarin laga soo laabtay. Real lagu garaac Ismail Sarr oo dhawaaq ka tumay kulamo badan kadib. sidoo kale marka waxaa leeyahay Arne Slot afka furtay yiri waxyaabo badan atabanaa jiraan laga yaabay in cidii oo soo gata hadda inuu ka caawinayo. marka waxaa leeyahay Arne Slot afka ayuu furtay wuxuu dhahay xidiga badan iibsanaa jiro kuwa baxa jiraan weliba kuwa baxa wuxuu dhahay qaar anaga aarabna laakiin in ka doorteen inay baxaan jiraan sida Arnold. marka Arnold waa laga sabri lahaa ninkaas inkastoo Freiburg waa imay gooshiis waa ka hesheen kulankiisii wax kale waa kulan professional hore ka dheelay gooshiisna ninkaas caawiniisna soo socdaan garab dhaxaa soo dumaa. Saalax goolashiis iyo wax waa yaraanayaan hadda meel ku sii qorta ninkaas maadaama uu soo galayo haddaan garabka leedin ninkaas Saalax waa xiriiri doonaa Afrikaan leh marka inaba caadi maahan. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah ninkii la dhahay Dean Henderson oo ka dhawaajiyay in kulankii shalay kulan weyn oo ahaa weliba soo hadal qaaday in uu xusay abiisa oo ka geeriyooday. marka wuxuu dhahay marwalba qalbi ay la joogta adaan wax ku ahay. sidoo kale naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa soo saartay liis uusan ku jirin leeyahay Valverde xidiga dhowr ayaan ka maqan safka Bertole ciyaari doona kulanka saaxiibtinimada ah. waxaa ka mid ah leeyahay ciyaartooydaas oo ka maqan naadiga kubadda cagta Real Madrid intaas oo xidig ayaan dheeli doonin
kulanka Biritoole ee saaxiibtan Eduardo Camavinga aan ku jirin Enrique ku jirin Ferland Mendy Valverde iyo Jude Bellingham intaas biri ma arki doontid kulanka isku diyaarinta xil ciyaareedka soo socda marka waxaa leeyahay innaba caadi maahano waa isku dhamaadeen warkaas helaas xidigna la'aantooda ay dheeri doonaan biri hadduu ilaahay raali ka noqdo wixii soo korona insha Allah muuqaalkeen ayaad kala socon doontaan sidaas iyo amaano Allah subscribe like share and bye bye